بسم الله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد سليمان أنا إذن سووعي waxaan idin soo wacayna inaan kalmateyn ka iraahdo go'aamada ka soo baxay magaalada Hargeysa maamulka Khaatumo iyo ka Somaliland ay soo wada saareen in aan insha Allah ta'ala kalmateyn ka iraahdo sidaad ka warqabto muddo sanadaba wada hadaladani waa ay socdeen waxaan u maleynayaa markii ugu horeysay barnaamijkaaga xogta iyo xaashi ya aad wax iiga weydiisay wada hadalka waxaana aan jawaabtaydu mar walba ahayd shacabweynaha reer Khaatumo aan u sheegayay aanuna ku ixtiraamayni hawsha siyaasadda iyo wada hadallada maamulada kale iyo hay'adaha caalamiga ah maamulkii aan u samaysanay mar walba laha maamulkaas nooga wakiila u daba fadhina wixii ay cidda markaa dani naga dhaxayso barnaamijyada ay la galaan kullayba ninkii muxuu yiri bisha raadinteeda hortaydayba imaan waanuba arkiyo waana la horkeeniyo markaasaan wax ka oranayna ilkam dameeraad lama noqdo isdhinacyaaca iyo in la isbarbarayaaco iyo in la isku kalsoonaan waaya waa mudaro waana arrimaha la rabay ujeedooyinka Khaatumo loo samaystay mar walba ahayd in dadkani ay yeeshaan maamul iyaga ku matala arrimaha siyaasadda taa micnaheedu maaha in danaha dadkan masiirkooda ujeedooyinka ay leeyihiin ay cid jeebka ugu jirto ama cid kaligeed madaxa ay ku qaadan karto ama ay ku tala bixi karayso dadkani golayaal bay leeyihiin golayaashaas wixii ay qaataan hadhowtana la rabaa in ay shacab weynahooda ay ka dhex tusaan danihii waxba yaanan ararta ku fogaanin hadalkaygan aan durba ka jeedinayo go'aamadii galabta ka soo baxay Hargeysa waxa igu kalifaya waxa weeye mudarrada iyo dhibka iiga muuqda oo aan ka seexan kari waaye inaan la seexdo igu barido ilaahay hadduu kuu roon yahay ay naftaydu ogolaan weyday si kale haddaan u dhigo go'aamada ka soo baxay Hargeysa maamulka Khaatumo mas'uuliyiintii meesha ka marayay ay ogolaadeen ama soo qaadeen ma aha kuwa ka turjumaya danihii dadkani ay lahaayeen ma aha kuwa matalaya wixii aanu u dirsanay ma aha kuwa ay annaga noo soo qaadeen ma aha mid baabi'inaysa ama daweynaysa ama dhayaysa dhibaatooyinkii dadka reer Khaatumo ay qabeen loo samaystay maamulka Khaatumo odayaashan ama madaxweynaha ahaato ama gudoomiye barlamaan ha ahaato ama mas'uuliyiinta kale meesha maraysay ha ahaatee aanu u igmanay haddii aan sii bayaamiyo dadkani reer Khaatumo axdigoodii iyo axdi qarameedkoodii iyo dastuurkoodii ay lahaayeen qodobadan meesha ka soo baxay waa kuwa ka hor imaanaya liddi ku ah burburinaya dadka reer Khaatumo ujeedooyinka ay Khaatumo u samaysteen waxaa kow ka ah in ay dalkooda iyo taladooda ay u madax bannaanaadaan inay iyagu leeyihiin inaan reer Sheekh Isxaaqna ugu talin kuna liqin uguna biirin kagana mid ahaan waxa Hargeysa laga soo yeedhiyayna ayan lagu sanduleyn ayan Hargeysana u daba fadhiisan martina ugu noqon qaybna ayan ka sugin ama ayan ka tabanayn wax qayba haddii aan insha Allah ta'ala carada iyo niyad jabku uusan iqaadin waxaan ku soo ururin lahaa qodobka dadkan waxa ay u samaysteen Khaatumo
in ay dalkooda iyo taladooda u madax bannaanaadaan taasi ma ay jirto meesha kuma qora kama ayan soo bixin kama muuqato xitaa laguma tala jiro taasna weeye ta dad badan oo aanu jecelahay wiilashaan ugu jeclayn dadkaan ugu jeclayn ilaahay hadduu kuu roon yahay colaadda intaa la eg ee dhowrka kun ee nin ay u dhimatay waxay u dhimanayeen waxay ahayd taladooda iyo deegaankooda inay u madax bannaanaadaan period ma ahayn qayb hargeysa laga doonayay ma ahayn ilaahay hadduu kuu roon yahay wasiiro nooga maqnaa ma ahayn ilaahay hadduu kuu roon yahay baarlamaan la furayo ma ahayn ilaahay hadduu kuu roon yahay arrimo kale oo ilaahay hadduu kuu roon yahay martidii markii horeba joogtay aanu dusha marti kale oo ku siyaada aanu ku noqonayno arrintaas iyo qodobada iyo dastuur baa la furayaa iyo qayb iyo cadaalad Somaliland loo dhan yahay wuxuu si toosa qodobadaasi waxay si toosa uga hor imaanayaan dastuurkii Khaatumo ee sheegayay in dadkani taladooda iyo deegaankooda ay iyagu leeyihiin cidna ayan u daba fadhiisanayn cidna ayan ugu talinayn cidna ayan xaajo kala galeen gorgortanna ayan lahayn muqaddas ay tahay talada dadkan iyo deegaankiisa inay iyagu gaar u leeyihiin marka taladooda iyo deegaankooda ay gaar u yeeshaan cidii kale ee ay wax la qaybsanayaan darisnimo iyo walaaltinimo iyo Soomaali iyo wixii ka sokeeya arrinkaasi waa arrin iyagu ay leeyihiin madaxweyne Cali Khaliif uu garab taagnaa galabtii aan lahaa gunnimo ninna kula tartami mayno tiibaanu ka taaganahay martidii hargeysa markii horeba joogtay baanaan lahayn waxa naloo qaybiyo mid cusub baanaan noqonayn ilaahay hadduu kuu roon yahay beesha reer Sheekh Isxaaq waxa ay leedahay baanaan qayb ka doonayn dhulka iyaga baanaan raalli ku ahayn wiil reer Sheekh Isxaaqi in uu qori uu ku haysto ilaahay hadduu kuu roon yahay intii horena saasay u dhimatay haddii ay noqotana in kale oo farabadan ay diyaar u tahay inay u dhimato arrintaas qodobka inaan sida u cadeeyo ilaahay hadduu kuu roon yahay waan jeclaa nasiib darro ilaahay hadduu kuu roon yahay mas-uuliyiintiina in ay taa ku talisay hase yeeshee arrin annaga noo taalla ma aha qodobka labaad Somaliland baa lagu biiray ama lagu biirayaa ama ilaahay hadduu kuu roon yahay qodobkaasna waxaan rabay in aan ka idhaahdo mas-uuliyiinta meesha maraysay mandate uma haysan awoodeed ma leh kuma tala bixi karaan ilaahay hadduu kuu roon yahay ilaahay waxaa la yidhi hal libaaxayo dhurwaa ku cun laguma habaaro dadkan waa la haystaa nin la haysta dhiibistiisana duco uma baahna waxa loo dirsaday waxay ahayd in laga xoreeyo in la geeyo oo ilaahay hadduu kuu roon yahay la galbiyo dadkanoo hargeysa loo galbiyo dadkani diyaar uma ay aha wax danoo ku jirta iyo wax la oran karo heshiisna lama oran karo mas-uuliyiinta meesha maraysay sida dastuurka Khaatumo ku qoran mandate uma haystaan ay yiraahdaan waxaanu ku baabi'inay dawladii iyo maamulkii dadkani ay samaysteen Khaatumo oo waxaanu ku biirinay Somaliland arrintaasna ma aha mandate ay haysteen mas-uuliyiinta Khaatumo ee meesha maraysay waa ina wax kama jiraan heshiiskaasi Soomaalidu waxay tiraahdaa sida loo indhaxun yahay looma alla la'a adduunkuna waa harka labadiisa gelin haddii maanta ama aanu noo muuqato in aanu yara furfurannahay ama ilaahay hadduu kuu roon yahay baalka naga qoyan yahayna micnaheedu maaha in aanu u qaadayno caruurtayada iyo jiilka naga dambeeya gunnimo inaanu u qaadayno micnaheedu maaha
ilaahay baanu sugaynaa wakhtiga iyagaa noo soo wareegi doona hase yeeshee saxiixi mayno waa baahanahay bakti looma cunaa la yidhi taana waxa weeye waa taa heshiiskaa ka soo baxay hargeysa go'aamadii meeshaa laga yeedhiyey mid noo yaalla nagu matala raalli aanu ka nahay ma uu aha ilaahay hadduu ku rayan waxaana leeyahay mar haddii ay timid go'aamadaasi ay si toosa uga hor imaanayaan dastuurkii in si degdega golayaashii khaatumo ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta meeshaa tagtay ee go'aanka soo qaaday inay soo bandhigaan waxa ku kalifay arrintan in laga doodo in si wada jira looga noqdo go'aamada haddii loo baahan yahayna shirweyne khaatumo loo yeedho wabillahi